khadka telefoonka waxaa hadda si toos ah ugu jira murashaxa golaha wakiilada ee gobolka Sanaag murashax xildhibaanad ayaan Cali Wadani ayaan ugu horeyn ku soo dhawow bal waxaad sharaxaad naga siisaa waxyaabaha doonayso inaad ku tartanto ku soo dhawow aad ayaan ku salaamayaa walaal British wad mahadsan tahay waa anigoo ayaan Cali Wadaniya oo ka sharaxan xisbiga wadani waxay igu kalifay in aan iska soo sharaxo golaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Somaliland baahida jirta dhibaatada ka jirta baarlamaanka Somaliland ee haatan fadhiya imisuu fadhiyay baarlamaanka Somaliland intee sanadood ayuu fadhiyay maxay 30 sanadood baarlamaanka Somaliland qabteen maxaa la taaban karaayo ay hirgeliyeen intaas oo dhan waxaan u arkaa waxba yahay sidaa darteed waxa haddana ii muuqatay dadka wax doorta iyo dadka bacadka taagan iyo dadka wax soo saara iyo dadka dulman intuba inay dumar yihiin 70% dumarka ayaa wax doorta iyaga ayaana wax bedeli kara waxaan leeyahay dumarka reer Somaliland gabi ahaantoodba kuwa wax doorta waa idinka kuwa la dulmaana waa idinka kuwa dhibaatada dul joogtaana waa idinka waa inay gacmaha isqabsanaa dumarka Somaliland waa inay ka dhex muuqdaan siyaasadda Somaliland si ay wax uga bedelaan waxa ay rag qaban waayeen baarlamaanka dhibaatada taala ayaa igu kaliftay inaan musharaxad noqdo su'aasha labaad ee la weydiiyay dadka reer Somaliland waxaan kula talin lahaa kuwa miyiga jooga iyo kuwa magaalada joogaba in ay isdiiwaan galiyaan goorma ayaad wax doorataa goorma ayaad istaagtaa meesha cod bixinta markaad kaarkaaga sidato hal goob kaga codee ka qaado kaarkaaga qof waliba gobolka uu joogo ama uu ka soo jeedo waa inuu kaarka ka qaataa si uu hadhow uga codeeyo waxaan kula talin lahaa muwaadiniinta reer Somaliland isdiiwaan galiya kaarka qaata codkaagu wuxuu bedeli karaa wax fara badan codkaagu wuxuu dayici karaa wax fara badan oo dalkaaga iyo dadkaagaba munaafac u leh sidaa darteed ummadda reer Somaliland waxaan kula dardaarmayaa codka inay bixiyaan si ay codka u bixiyaan baan leeyahay inay kaarka qaataan muwaadin kaarka qaado waxay cadeynaysaa muwaadinimadaada awoodaada tad wax ku dooran leeyahay tad wax ku bedeli leeyahay intaba kaarkaas ay xambaarsan tahay waa inaad gobol walba goob walba deegaan walba degmo walba tuulo walba iyo xaafad walba joogto muwaadin kaarka qaado inta ayuu ku egyahay waraysigeygii Britishna aad ayaan u salaamaya iyo TV-ga SBS aad ayaan idin salaamaya waana mahadsantihiin Cabdiraxmaan Yaasiin British Television SBC Hargeysa